kadib amar ka soo baxay Taliska Booliska Gobalka Banaadir iyo hoggaanka sare ee maamulka Gobolka Banaadir ayaa lagu sheegay in dib u eegis lagu sameynayo qaabka ay u shaqeynayaan shirkadaha ka shaqeeya suuqa sarifka Onlinke waxaana laamaha amniga ay xireen dhowr shirkadood oo ka mid tahay shirkada Future Oo oo ka mid ah shirkadaha ka howlgala magaalada Muqdisho waxaa maanta dadweyne aad u fara badan ay iskugu yimaadeen halka ay degan tahay shirkada Future maadaama ay hakad ku timid shaqada shirkada u haysay macaamiisheeda waxaan warbaahinta halka kula hadlay guddi ay sameysteen macaamiisha maalgashi ku sameystay shirkadan macaamiishan ayaa tilmaamay in ay aad ugu xun yihiin hakadka la galiyay shaqadii shirkada waxayna dawladda Soomaaliya ka codsadeen in la bedelo go'aanka aan danta ugu jirin shacabka maadaama waxa shirkadaha maalgashada ay yihiin dadka shacabka ah oo dalkooda ku nool dawladda Soomaaliya waa dawladdii intaanu dad mas'uul ka ahayd waxaana laga rabay inay hantida dadka ayadu badbaadiso annaga inay hantideennii qalqal gelisana kama filaynin dawladda Soomaaliya waxaan codsanaynaa haddii maamulka shirkadda ay dhibaato ka jirto in si sharci ah arrintaasi loo xalliyo haddii aan culays kale iyo dhibaato kale jirin waxa meeshan jooga waa bulsho hantidoodii maqan tahay waxaan codsanaynaa inaan hantideennii dad kale loo dhibaataynin annaga haddii ay shirkadii dhuumato xataa waxbaan ku sabri lahayn oo waxaan dhileen dad baa hantideennii la goostay laakiin maamulkii shirkadii oo taagan oo la hantidiina waan idin haynaa inaan idin badbaadinaan diyaar u nahay kama filaynin dawladdeennii oo aan annaga ka filaynin inay ayadana difaacdo inay hantideennii qalqal geliso shirkada Future waxaan leenahay sharciga wixii sharciga kama weynin shirkaduna kama weyna anaguna kama weynin wixii sharciga waan ogolnahay balse inaan xaqayna helno ayaan doonaynaa dawladdu ay noo fasaxdo inaan xaqayna helno war shirkada lacagti iyagu bixi waaya waa la arkay laakiin shirkad lacagti inay bixiso ogol dawladdu inay hor taagan tahay wali maanan arag madad koor marka arrintaas waxaan leenahay waan ka xunnahay aday shakhsiyaad taana dawladdu soo fiiriso aday ay sharci darra jirtana sharci darra wixii hal la saxo balse waxaan ku soo koobayaa ummadda Soomaaliyeed oo xaqeeda u baahan banaanka u taagan oo subaxdii soo kala xado 12 saac salaad subax hadii laga baxaa inta dadka qaarkood yimaadaan maqribkiina ka tagaan iyagu xaq wara doonay dadku say xaqooda u helaan xaqooda hala sii haday ay shirkadu dawladdu saas ku sii cadaadiso waxa ima karto inay shirkadu in caajisto isaga tagta meesha haday isaga tagtana waxa ima karto inay xaq dadka u dhumo waxa ka mas'uul xaqaha dawladdu aan leenahay dadka dawladda oo shakhsiyaadka oo kamida amba bangiga dhaxal naqato amba kuwa ka sareeya ha naqato dadka meesha xiray ayaa ka mas'uula hadii lacagtu ay meesha lacagtayna aan weyno marka waxaan dawladda ka codsanaynaa inay arinta sharciyan ay magaranaysaa aqliyanba inay magaranaysaa oo ay eegto oo ay gacanta ku qabato oo ay magaranaysaa arintaasi si degdeg ah codkooda ay maqasho maadaama aanu nahay dad magaranaysaa codkooda warbaahinta aanu idinku soo gaarsiinayno in dadka codkooda maqasho inay dadka dhageysato dadku waa dawladdoodii waa shacbigoodii inay maqlaan oo inay dawladdu maqasho ayaa la doonaya sharcigi maxkamadii bangiyadii oo dawladda oo dhaxa oo dhan hantidan shacabka ay leeyihiin inay badbaadiyaan oo dadka shacabka ahaa waxooda si nadiif ah oo walaaltinimo ku jirto oo maartay ku jirto shacabnimo iyo dawladnimo ku jirto in macnaha dadkii loo maartay lagu dhimriyo waxoodina maartay aan luminin maxaa la laba dib meesha ku dirartaa la maxaa la cawsa ku gacan gala ma fahant anaga dadkaas iska naay lacag baa naga maqan lacagteena aan rabnaa waxaan gaarsiinaynaa codkeena madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wixii lacagta noo soo celin kara alla soo daayo ragii lacagteena hana la siiyo hadalkan ka soo baxay macaamiisha shirkadda ee ku aadan in la fasaxo shirkadaha ama loo ogolaado inay sii wadato shaqadeeda ayaana la ogeyn inuu wax ka bedeli doono go'aanka dawladda federaalka Soomaaliya hore ugu qaadatay shirkadaha ku shaqeeya sarifka Onlinke إبراهيم حاجي يوسف تلفزيون كدلك مقدشو